kursigan ku suntan 141 ee deegaan doorashadiisu ay tahay Hirshabeelle ayay madashani gaar u tahay qabiir caafimaad gargaare ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka ee dalka Dr. Guuleed ayaa ehelkiisa marti uga inay ku sharfaan kursigan oo reerkiisa tabasho badan ay ka qabeen muddo xileedyadii dambe Dr. Guuleed ayaa fursad u helay in dadkiisa uu si gaar ah u wareysto isagoo aan haynin xasaanad matalaad ayaa ugu dambeyn waxa uu go'aansaday inuu isu soo taago kursigan oo caawin kara howlaha caafimaad ee uu deegaanka u qabto sidoo kalena kordhin kara adeegyada dhinacyada kale ee aasaaska u ah nolosha qoyska iyo deegaanka Sheekh Umar oo kamid ah martida u soo baxay garab istaaga musharax xildhibaan Dr. Guuleed ayaa soo dhaweeyay isagoo u hadlaya guddiga qabanqaabada ee gogoshan wuxuu shacabkii ku doortay ayaantan dib u shalaayeen shanta dhigataaya iyo furdada shuqul u doontay sitaawaha la raac boobaraha sharafu ku dheer macnaha waxa la rabaa xildhibaan hore leeyahay lahaw marka ninkaan qaadayna leeyahay macnaha marka hadalkaas waxa waa hadal wanaagsan doctor soo dhawo waxa waaye waan loo qaateena waan dhalinyara dawladdan ayaamaan xoogayna dhalinyaro rabtaan u maleeyahay marka fiiriyo meel kasta markayna ninkan dhalinyaro dirsan waxa waaye arrin muhiim waaye Dr. Sheekh Xuseen Cali Uul ayaa waxa uu ku amaanay doctorka howlihiisa waana mid ka mid ah baahiyaha gaarka ah ee deegaanka kursigani ku suntan yahay uu leeyahay anu waxaan fiiriyay waxa la yiraahdo body language waxa dhahayaa jira ama wax la dhahayo luqadul jasad aan dhahno hadaan carabiga nahay marka wadaadkaan wadaad mutawaadic waaye qofta wajigeeda la fiirshaa waxa jira xadiis dhahayo waxa jira qofta ilaahay oo jeclaado inuu xadiis waa ma qofku uu neetaaba ma xadiis waa wuxuu leeyahay ruux ilaahay jeclaado samada malaa'ikta la amra macna waxa la leeyahay hebelaan jeclaadee adunkuna jeclaada malaa'ikta amraysa macna shay kama ana xadiis waa markaas ahlu ardiga jeclaahaya qabuula loo soo jiha oo dadku inay yiraahdeen sheekh hebelow wadaad hebelow ayadoo dadka la dhahaaya dadka adiga adoon guriga ka soo wacin ayaad waxaad arkaysaa ayadoo la daba wada joogaad arkaysaa marka aniga waxaan oo muuqda ruux wuxuu barto doctornimadu ay ka muuqato qofta ay soo istaagto dadka luqadaha yaqaan luqadda waxay leedahay qofka jirkiisa markaan hadda saan markaan u taagana oo saan oo hadlaayo qaab waay waxa la qoftan waxa ay rabtaa leedahay qolo meesha fadhida jirto dhahays midkaan gacmaha taagtaagay waxa la ka maqan ay ku dhahay adoon warsan oo interview kula yeelan bimujarrad oo ku adku wuxuu leeyahay qoftan saas way ku dhaha marka anu waxaan leenahay waxaan rajeeynaa guul fiican sida naga muuqata muuqaalkiisa dabcan maxaa yeelay umadu qof walba waxay higsi leedahay doctorku waa soo dhaweynaa waxaan leenahay umadaadu waa ka dhan yahay waxay u baahan tahay caafimaadka taqaynay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxbarashadii taqaynay u baahan tahay waxay u baahan tahay amni u baahan tahay waxay u baahan tahay in irda badan loo furo maama Carabi Yuusuf oo goobjoog u ahayd sida loo soo dhisay kursigan ayaa beesha waxa ay kaga digtay inaan mar kale lagu kadsoomin kuwii hore loo tijaabiyay oo ilaa iyo hadda aan la aqoon meel lagala xiriiro Guuleed haddii uu ku guuleysto kursigan in uusan irdaha xiran aniga waxaan la soo shaqeeyay nimankii hore ninkii koobaad la soo shaqeeyay maalintii oo xilka ka tagay hadda inta ka dhaxleh xafiiska xildhibaanka meel oo ku yaal maarag maxaqan u leeyahay bas cid xaq u lahaa jirto ma aqaan meel uu ku yaal xamar meel uu ku yaal ma aqaan maxay ahayd mansabka siyaasadda ninka xildhibaanka ee beesha oo ka soo baxay in uu u shaqeeyo la rabaa dhalinyarada iyo waxgaradka kale ee beesha ee kursigan iskale ayaa isku waafaqay in kursiga beeshan aan loogu helin ganacsato iyo danley siyaasadeed oo aan war iyo wacaal toona u haynin dadka iyo deegaanka ay matalaan waxaa jirta markii wax la soo baraayo
يعني حيرر كلامبرا وحكمنا قف كاسينو نقول قف سمباتيك آدون حريص بدن مركز قارقود بكان آدو حنون سندو كوي مالو وحلاقي بعض كوي نيرادان دكتور كوا كان عادة وحاسد واي لكن وحن قلبي هذا كوجرة دمك وقدتك أنا أديك الله حنون سنيش مركز دكتور كا وحياها وصوبرتي وحاكمنا ولا صوبري حدادنا واحترينها وقدرين عربنا مركب دكتورك قف هيستوى حدادنا وحترينها وقدرين وحرجينا إن شاء الله تعالى إنه واحد بدن ترى حلي بان مديرنها كرتي ودنما بدن درانكي ودنما درانكي ودني قاله قدام قضى برشة النقو حلي بان مدير الشذا كوي هرك الدورون درا لي إنه نقو حلي بان مدة عدا دتكم هالشغلي sanadkan waa ka duwan tahay sanadadii hore iyo sanadkan waa kala duwan yihiin sanadkan waxaa waaye sanadka tartanka dhalinyarada cidda waxaa hor yaalla dhowr arrimood inay kala doortaan sanadkan waxaa hor yaalla aqoon lacag iyo xoog marse u kala dooran lahayaan cidday jirtaa ugu dambays sanadkan qalinka in wax lagu bedelaa rajaynaa dhalinyarada maadaama afkooda ku hadlaya inaan qalbigooda ku hadla waaye isbedel arnaa sanadkan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu doctor guuleed cabdi sheekh ayaa waxa ugu horreynba kaga jawaabay dadkiisa ogaalka uu ka haysto dadka iyo deegaanka anigu kulamada gowraxaadka waxaan ka xasuustaa mar aan odayaal qaraabada aan maalin wada fadhin nin baa wuxuu i weydiiyey horta adiga ma bannaanka aad ka timid xoogaal sama tahay marka su-aashaas dabcan marka qofka la weydiiyo waxaa laga yaabaa inuu si caadi u qaato laakiin xaqiiqda iyo waaqac jir waxaa waaye yacni wuxuu u daarnaa uu qofkaa fahamsanaa nimaan xoog ogaa lahayn in xaajo loo diray markaan saas leeyahay waxaan ula jeedaa aniga halkaanaan ku barbaaray wax ku bartay ku shaqeeyey yacni nolosha waqtigii ugu badnaa halkaanaan ku qaatay bulshada matalaada siyaasadeed ay maanta leeyihiin isbeddel aan u baahannahay dadkii la matalayaan ku jiraa duruufaha ay ka cabahayaan dadka ay saameeyayaan ku jiraa marka waxaa waaye xog ogaalnimadaas iyo wuxuu weydiinaya inaan horta dhibka meesha ka jiro ogahay marka waxaan iri si fuuda waxaan iri aniga qof deegaanka ka tirsan oo bulshada ka mid ahaan ah bannaankana kama imaan dabcan markaan saas leeyahay waxay ka mid tahay uniqueness-ka aan rabo inaan u sheegay cidda oon idhaahdo nin xogogaalaan dhahay haddaad xaajada ii dirsahaysaan oo cidda sanadkanna matal aa leedihiin matalaad saxan idin matali doonaa kursigana idinkaan idinkugu isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu la wadaagay howlaha uu deegaanka u tagay xilliyadii dambe marka laga hadlaayo qofka marka la miisaamayo dabcan waxaa la weydiiyaa qofkan de muxuu soo qabtay muxuuse qaban karaa aniga sida la idiin sheegayba nin dhakhtaraan ahay muddo dhowr iyo 10 sanaane dalkan ku shaqaynaya gaar ahaan hay-ado shisheeye oo caalami ah iyo kuwa local ahba inta u shaqaynaya markaan saas leeyahay marka badanaa hay-aduhu waxa ay ka shaqeeyaan waa adeeg bulsho in xogogaala oo adeegaas bulshada Soomaali kaalin maaragtay u baahneed ka qayb qaadayaan ahay horumarinta adeega caafimaad ee dalkan kaalin wanaagsan ku lahaa muddadan aan shaqaynayeen in badan ka soo qabtay haddii deegaanka iyo ehelkana maaragtay la i weydiiyeen waxaan xusuusan karaa muddo fog ka hor bulshada in badan oo ka midana og tahay inaan deegaankii kusoo shaqeeyay adeeg caafimaad iyo gargaarid intaba inaan geeyay marka nin baahiyaha reerka og haddii loo baahdana kaalintii ay mudnaayeen ka geli kara inaan ahaan aaminsanaa markaan soo istaagaya doctorka ayaa waxa uu ku soo gunaanaday hadalkiisa inuu la joogi doono dadkiisa oo horay albaabada ay uga xirteen kuwii matalayay midda kale ee uu muhiimsan waxa waaye yacni kursigan
muhiimadda ummaddan uu leeyahay qofka inuu waxaa la rabaa xoogaal u yahay ee haddii inta lagu saaro aada iskala qunto wareerkeeda ay leedahay waxaan ula jeedaa haddii ilaahay qadaro inaad mas-uuliyaddaas igu idmataan waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinku matali doono si dhab ah xuquuqdiina siyaasigaa inaan soo dhici doono in aanan dan gaar ah aan uga shaqay doonin biidni illaahi tacaala waxaan kaloo ballan qaadayaa hadda waxaa waaye cabashooyinka jiray ka mid tahay mogtaa qofkaad mudnaanta siiseen in aad arki weysaan ama uu idin soo dhexgeli waayo anigu sida caadada ahaydbo bulshadan aan ku dhex jiri jiray anigoo maaragta shaqaynaayo iyo anigoo wax baranayo intaba iyo intaan barbaarayo intaba waxaa waaye inaan bulshada ku dhex jiri doono mar walbana baahiyahooda gaarkaa inaan uga shaqeeyo mooyaane aan wax kale uga shaqeyhayn markay ii baahdaanna ay arkayaan jidka aan u taaganahay waa ballan qaadaya 36 jirkan u taagan kursiga 141 ayaa ku takhasusay cudurrada kelyaha iyo kaadi mareenka waxaana uu wax ku soo bartay dalalka Soomaaliya iyo China waana ganacsade ku guuleystay hal abuuradii uu ka sameeyay gudaha dalka iyo dibadda How I thought to do it.